gudoomiyaha ururka ra'iislayaasha Soomaaliland ama timajarayaasha mudane Deeq Daahir Faarax ayaa telefishinka caalamiga ah ee STN TV uga warbixiyay caqabadaha haysta timajarayaasha wadaniga ah isagoo oo sheegay in ay timajarayaasha ajaanibka ay saameyn ballaaran ku leeyihiin dhalinyarada wadaniga ah ee timaha jara. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Anigu ah gudoomiyaha dalada guud ee ra'iislayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee midnimo waxaan maanta halkan waxa weeyaan shirka jaraa'id waxa weeyaan ugu talagalnay inaan ka warbixino barnaamijka ururka dalada waxa weeyaan u yaala kaas waxa weeyaan daladan loo abuuray sidii wax uga qaban lahayd baahiyaha asaasiga ee waxa weeyaan ra'iislayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan qabaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira waxa weeyaan 500 oo ra'iisle ayaa jira 6 gobol ee dalka waxaana ka shaqeeya 4500 oo inan oo muwaadiniin ayaa waxa weeyaan ka shaqeeya nimanka waxa haysta caqabado badan oo waxa weeyaan dadka ajaanibka waxa weeyaan ku soo galeen waxaana ku tiirsan 10,000 oo qoys waxa weeyaan waxbarashadooda haday noqoto caafimaadkooda haday noqoto dhamaantood waxa weeyaan ku sabalgareeya waa la garan karaa marka ninka waxa weeyaan dhaqaalihiisa loogu yimaado amba waxa weeyaan lagu soo fargeliyo dhibaatooyinka waxa weeyaan ka dhalanaya amba qoys burbur ha noqoto amba dhaqaale burbur ha noqoto waxa weeyaan waa la garan karaa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa filaya waxa weeyaan dawladii hore ee waxa weeyaan iminka waxa weeyaan xilka wareejiyay waxay ku guuldareysteen in dhibaatooyinka waaweyn ee ganacsatada ra'iislayaashu waxa weeyaan ay qabaan inay waxa weeyaan inay wax ka qabtaan wayna ku guuldareysteen ma filaya dhamaantood wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashaduna way ku guuldareysatay sidii waxa weeyaan ay ugu sameyn lahayd tababarada caafimaadka intuba labada wasaaradoodna waxa filaya in waxa weeyaan ku guuldareysteen wax qabashadii iyo waajibaadkii waxa weeyaan ay kala haayeen xukuumadaha horena waxa weeyaan ganacsigaasi waxa weeyaan maadaama ururku ay yihiin waxa weeyaan ganacsatadu waxa weeyaan cashuur bixiyaal waxay xaq u leeyihiin in la difaaco waxa weeyaan danahooga waarina yarba waxa weeyaan xirfada waxa ku shaqeysta waxaan ugu talagalay in maxadada in loo dhiso waxa weeyaan iskuuladii farsamada gacanta ee ra'iislayaasha maanta waxa weeyaan wasaaradda ka howlgelaysa amba wasaaradda waxa weeyaan u soo jeeda oo la waxa weeyaan war aan waxa wax ka qabano midna habeeraatay ma jirto waxa kaliya ay furi kari waayeen baalku kuwan anagu aanu sameeysanay dugsiga aanu ka dhiganay wasiirka kamid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa weeyaan xadhiga ka jari kari waayay maadaama aan waxa weeyaan ay yihiin ra'iislayaal dugsigaasi taasina waxa filay waxa weey arrimaha waxa dadku ku kala tagaan waxa weeyaan qaranku uu ku burburo weeye madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa war xirfadlayaasha waa kuwa ku dhiiranaysay ee alleed waxa weeyaan waxbaan ka qabanaya ee waxa weeyaan alleed waxa weeyaan waxbaan waxa uu qabanaya maanta waxa laga fadhiya sidii xukuumadii hore ayna ugu guuldareysan farsamo yaqaaninta in waxa weeyaan ku guuldareystaan adigana ilaahay waxaan kaga rajaynaa kii ku guuleysta ee wax ka qabta inaad noqotid waxa weeyaan farsamo yaqaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad waxa weeyaan si xooga waxa weeyaan aad u saartid waxa weeyaan awood waxa weeyaan ay leeyihiin wixii muwaadiniin waxa weeyaan xaq u leeyihiina in waxa weeyaan la siiyo maadaama dastuurku uu dalku tilmaamayo in ka bax wax la gelinayna in ajaanibi taasna da muwaadiniinimo maaha madaxweynaha maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu maalintii uu ballan qaaday uu la kulmayay beelweyntan maxeeday dawadaag ama beelahan gabooye inuu farsamada gacanta hirgelin doono farsamadii gacanta maanta wax horta lagu harsanaa oo quri waxa weeyaan ra'iisinta ra'iisliina maanta uu ka baxaya maanta inta 400 oo kun dad ka badan baa ku nool maanta ummadaasi tiyo wadanka wada bisaarad ka taagantay amba maxay sixir bararu ka taagan yahay intaasina inay maanta si barakacda laga yaaba haddii aan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu aanay tallaabo degdega aanay maanta ka soo saarin ummadaas way barakacaysaa mas'uuliyadeeduna wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha maanta xilka loo saaray ayuu saaran yahay xilkeedu waxaanu anagu geed dheer iyo geed gaaban iyo dhawaaq dheer ba caalamka iyo meel walba aanu gaarsiinayna war ummadaasi maanta way barakacaysaa dad ajaaniba barakacinaya war waxa laga qabto oo ummadaasi intaas oo qoys baa ku nool oo amba iskuul ha noqoto amba caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto intaas laga masruufa maanta kabooleel baan lahayn kaboole maanta wadanka kama jiro birtumaan lahayn birtimana maanta kama jiro xifradda qura ee maanta dalkii ku hadhay waa ra'iisle waa ra'iisliina ajaanib la keeno wadanka waa Mustafa Ahmed Samakaab wararka STN TV gudaha magaalada Hargeysa.